بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما أنت وحان ربا إن أمد الصوماليات للسعودسية حالة الدلك إي أرمها تاغن سيدا أن لسعنو منذ حالات كبارلمان كفدرالكا وحاو كوئكا تضبيع لباتن كديسمبر لبكن إي لباتن هلك مدد حلهاينتا شرعيقا ee madaxweynaha ay ku akayd 7 February 2021 haddaba mas'uuliyiintii muddadaas loo dhaariyay in ay dalka hogaamiyaan waxa waajib ku ahaa in ay ka shaqeeyaan qorshaha looga guurayo muddo xilaadka xiga marka koodu sii dhamaanayo oo ah doorasho sida uu tilmaamayo dastuurka dalka nasiib darro arintaas ma dhicin sababtu sidii ay doontaba ha ahaatee waxaan u ekaanay dal aan lahayn nidaam awood isku dhiib oo aan la jaan qaadi karin dunida maanta iyo dawladnimada casriga ah si kastaba ha ahaatee waxaa la galay dadaallo aan loo kala harin oo dalka looga badbaadinayay in uu galo xaalad hubanti la'aan ah waxaa khalqal galay amnigii waxaa hoos u dhacay dhaqaalihii dalka waxaa shaki weyn galay saaxiibada Soomaaliya taageera waxaa kor soo martay cabsida ah in dalku galo xaalad aan la garanaynin meesha ay ku dhammaan doonto hooyo iyo aabba kasta waxay bilaabeen in ay ka fikiraan mustaqbalkii ay caruurtooda u qorsheeyeen iyo waxa iska bedeli kara ganacsade kasta waxa uu bilaabay in uu ka walwalo maalgashigii uu muddo dalka ku soo sameynayay rajadii wanaagsanayd ee mustaqbalka ayaa shaki ku yimid intaas oo dhan waxaa sabab u ah in hogaamiyeyaasha qaar ay ka goos adeegeen fulinta wixii ummadda Soomaaliyeed ku soo heshiisay oo ay ka mid ahayd maareynta doorashooyinka xilliga kala guurka ah xaaladaas jirta awgeed waxaan bogaadinayaa odaytinimada ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble oo inta badan si ay u turis ku jirto ku wajahay marxaladii la soo dhaafay waxa uu taagnaa meel dhexe oo koox walba ay u arkayso qof ku taagan fulinta heshiisyadii la gaaray wuxuu cadeeyay ugu horeyntiiba in aanu murashax ahayn wuxuu ku guuleystay inuu ka hortago in Muqdisho dhiig ku daato bishii Abriil ee la soo dhaafay wuxuu maareeyay xalinta khilaafkii gudiyadii doorashooyinka sidoo kale wuxuu maareeyay khilaafkii gobolka Gedo iyo ugu dambeyntii khilaafkii doorashooyinka kuraasta Somaliland iyo habraacyadii muranku ka dhashay haddaba waxaan soo jeedinayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed in la garab istaago dadaalada ra'iisul wasaaraha si aan uga baxno jahawareerka taagan sidoo kale waxaan bogaadinayaa madaxda dawlad goboleedyada oo kaalin weyn ka soo qaateen sidii loo soo gaari lahaa meesha maanta la taagan yahay oo ah in ay doorashadii dalka bilaabatay waxaan ugu baaqayaa in ay mas'uuliyadooda gutaan oo aysan doorashooyinka u hakin khilaafka taagan awgii faa'iidooyinka nidaamka federaalka ah ayay ka mid tahay in waxa villa Soomaaliya ka dhacaya aysan saameyn badan ku yeelanin Jowhar Garowe Baydhabo Dhuusamareeb iyo Kismaayo intaba maanta dalku waxa uu leeyahay xukuumad gudiyo doorasho iyo xaaladda taagan awgeed golo wada tashi oo marjac u ah markii loo baahdo nidaamka federaalka awgiis waxaan ka badbaadnay in ay jirto hal meel oo uu dalku ka burburi karo dhammaantii ciidamada qalabka sida waxaan leeyahay mas'uuliyadda ugu weyn ee xilliga kala guurka adinka ayay idin saaran tahay waana midda amniga oo ay ugu horeyso la dagaalanka cadowga nabadiidka oo lagu yaqaano ka faa'iideysiga marka ay xaaladahan oo kale taagan yihiin midda labaad waa in aad iska hubisaan cidda idin amraysa
iyo cidda howl idin diraysa iyo howlgalka la idin diraayo waxa uu yahay. waxaa si gaar ah u xasuusinayaa taliyayaasha ciidamada in ay ka fogaadaan ku milanka siyaasadda iyo dana gaar ah ciidanka loo adeegsado oo muwaadiniin aan waxba galabsanin la dhibaateeyo. mas-uuliyaddaas waa mid shakhsi ah, adiga ayayna dusha kaa saaran tahay taliye. madaxweynaha muddaxileedkiisu dhammaaday mudane maxamed cabdulaahi farmaajo waxaan leeyahay mudane ra-iisul wasaare Rooble, adiga ayaa magacaabay, isla adiga ayaa 1 May noo sheegay inaad ku wareejisay arrimihii doorashada iyo amniga dalka. billaah calayk, waa kala noqday, ha noo sheegin maanta, ilaan caqliga caadiga ah ma aqbali karee. mudane, shalay ayay ahayd ayadoo doorasho laga hadlaayo markii aad ceyrisay ra-iisul wasaarihii hore. taasi iyo midda maanta taagan waxay muujinaysaa ugu horrayntiiba in wax doorasho la yidhaahdo aysan qorshaha kuugu jirin. mudane, dadka Soomaaliyeed maankooda waa ka weyn yahay inay ku qancaan waxa aad leedahay keliya marka ay arkayaan waxa aad samaynayso. ugu dambayntii, talada aan siinayo mudane Farmaajo iyo saaxiibadiis waa in aysan Soomaaliya uga darin. haddii aysan Soomaaliya ka fikirayninna ugu yaraan mustaqbalkooda ha ka fikiraan. hadal jeedintayda waxaan ku soo gunaanadayaa arrinka Ikraan Tahliil Faarax ee taagan maanta. qoyska Ikraan waxay dacwad geysteen maxkamad sharci ah oo dalka ka jirta. mudane madaxweyne, cadaaladda garab istaag. waa waxaad u dhaaratay oo qoyskaas dulmiga tirsanaya u heli. waa waajib diini ah, mid dastuuri ah, mid damiiri ah intaba. damiirku ha ku danqado mudane. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.